السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داوضيال ميل والبود جوجتان qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida dagaaladii ugu cuslaa ayaa ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya ee gobolka Tigrayga iyadoo xoogga TPLF ay dagaalkaasi guula waaweyn ka sheeganayaan. sidoo kale xoogga TPLF ayaa waxay sheegeen ku xasuuqeen gobolka Axmaarada maleeshiyaadkii ugu faraha badnaa ee ciidanka Axmaarada ee gaarka. sidoo kale TPLF waxay sheegtay in waqooyiga Gondar deegaano cusub kala wareegtay militariga dalka Itoobiya. qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida gobolka waa Khamra ay caasimadiisu ay tahay Sabata ayaa la soo sheegay in la wareegeen maleeshiya taabacsan xoogga TPLF iyadoo TPLF wali uu dagaal xoogan ay ku hayaan gobolka Canfarta. haddaynu guda galno wararkeena oo faahfaahsan dagaal culus ayaa laga soo sheegay waqooyiga dalka Itoobiya ee gobolka Tigrayga iyadoo halkaasi diyaaradaha droniska iyo diyaaradaha gaarka ee militariga dalka Itoobiya adeegsadaan ay beegsanayaan xarumaha ay leeyihiin xoogga TPLF. dagaal qarar ayaa laga soo sheegay waqooyiga Itoobiya oo ku dagaalamayaan militariga dalka Itoobiya iyo xoogga TPLF. haseeshee dawladda federaalka ayaa meesha ka saartay inuu dagaal socdo u dhaxeeyo xoogga TPLF iyo ciidanka militariga dalka Itoobiya ayadoo dawladda federaalku ay beesha caalamka ka gadaysay in militariga dalka Itoobiya una ka bixin xadka ay la waraagaan gobolka Tigrayga. haseeshee walbaahinta taageerta xoogga TPLF ayaa sheegaysa inay dagaal qarar wali ka sii soconayaan waqooyiga dalka Itoobiya iyagoo xoogga TPLF dagaalkaasi ay ka sheegteen guul aad u ballaaran. xoogga TPLF ayaa waxay sheegeen ciidamo badan oo ka tirsan militariga dalka Itoobiya in ay cagta mariyeen gebi ahaana ay soo afjareen ciidamadii gudaha u soo galay waqooyiga dalka Itoobiya. TPLF ayaa waxay sheegtay in mar dhow soo afjari doonto ciidamada ka dagaalamaya gudaha gobolka Tigrayga ayna soo bandhigi doonto guulaha ay ka gaadhay iyo ciidamada ay ka qabatay militariga dalka Itoobiya ee dagaalka qarar ku haya waqooyiga dalka Itoobiya. haseeshee TPLF ayaa waxay sheegtay inay caqabad kala kulmaysa diyaaradaha droniska ee laga leeyahay dalalka sida ay sheegtay dalalka Masar, Turkiga, Imaaraadka iyo dalal kale oo ay sheegeen dawladda federaalka Itoobiya garabsiinayaan. TPLF ayaa waxay sheegaysaa kumanaan ciidan militariga dalka Itoobiya inay ku sugan yihiin gudaha gobolka Tigrayga iyadoo dawladda federaalku sheegayso in amar lagu bixiyo in militariga dalka Itoobiya ayna gudaha u galin gobolka Tigrayga iyadoo siyaasadaasi lagu sheegay inay tahay siyaasad laga galay beesha caalamka dalalka Mareykanka midowga Yurub oo dawladda federaalku ku dhaliilaysa ama ay sheegaysaa inay taageeraan xoogga TPLF. dalka Mareykanka ayaa hore ugu baaqay dawladda federaalka Itoobiya inayna ka daba tagin xoogga Tigrayga ee ka baxay gobolka Axmaarada iyadoo dawladda federaalka Itoobiya loogu baaqay in dagaalkan la soo afjaro miiska wadahadalkana la isku yimaado. haseeshee dawladda federaalka ayaa la sheegay inay qabanqaabinayso shirweyne qaran oo looga hadlayo xaaladda dalka Itoobiya. haseeshee dawladda ayaa dhawaan waxay sheegtay shirkaasi in ayna kamid ahayn xoogga TPLF oo isku wada inay ayagu yihiin xaqlayaasha ama kuwa kale ee xukuma qoomiyadda Tigrayga una hadli kara xaqooda. dawladda federaalka ayaa la sheegay inay xoogo kala wadato oo ka soo jeeda waqooyiga dalka Itoobiya oo siyaasad ahaan taabacsan dawladda federaalka iyadoo ku sheegtay kuwaasi inay matali doonaan waqooyiga dalka Itoobiya xaqa uu ku leeyahay dalka Itoobiya meelaha laga hadlayo xaaladda dalka iyo jahaynta dalka inay u matali doonaan siyaasiyiinta lagu sheegay inay taabacsan yihiin dawladda federaalka Itoobiya. haseeshee xoogga TPLF ayaa la wada ogsoon inay marnana aqbali doonin shir ay ka maqan yihiin in waqooyiga Itoobiya go'aan looga soo gaaro laguna xukumo ama lagu soo jeeyo xaaladda waqooyiga dalka Itoobiya. sidoo kale dagaal qarar ayaa wali waxay dhaxmarayaan ciidamada Eritrea iyo xoogga TPLF iyadoo xadka u dhaxeeya waqooyiga Itoobiya iyo gobolka waqooyiga Itoobiya ayadoo xadka u dhaxeeya waqooyiga Itoobiya iyo dalka Eritrea laga soo sheegay dagaal qarar oo halkaas ku dhaxmaraya ciidamada Eritrea iyo kuwa TPLF.
TPLF ayaa dagaalo qaraar ka wajahaysa ciidamada Eritrea oo lagu sheegay inay garab siinayaan militariga dalka Ethiopia. hase yeeshee aqoon-yahanka dalka Ethiopia ayaa waxay soo saareen inuu Afwerki waa madaxweynaha dalka Eritrea inuu marnana ka shaqeyn maslaxada dalka Ethiopia uu dabka ku sii shidayo. aqoon-yahanka ayaa waxay ugu baaqeen Dr. Abiy Ahmed oo ninka ugu sareeyo dalka Ethiopia inuu sida ugu dhaqsaha badan tallaabo ka qaado militariga dalka Eritrea uguna baaqay inay ka baxaan gudaha dalka Ethiopia iyagoo ay aqoon-yahanku sheegeen in Eritrea cadaawinimo gaamurtay ay u qabaan dalka Ethiopia aynan maslaxa ugu jirin in gudaha Ethiopia ka sii dagaalamaan. aqoon-yahanka ayaa waxay sheegeen in ciidamada Eritrea ay hub soo gelinayaan dalka Ethiopia markastana ay ka baxayaan ay tigreegan hub uga tagayaan iyagoo sheegay inay dabka ku shishidayaan dalka Ethiopia. xoogga TPLF ayaa waxay sheegeen inay ku xasuuqeen maleeshiyaadkii abid ugu badnaa gobolka Axmaarada iyagoo sheegay maleeshiyaad aad u tiro badan inay ku xasuuqeen waqooyiga gobolka Gondar halkaasoo xoogagga Tigreega ayaa maalmihii dambaba waxay ka dagaalamayeen waqooyiga magaalada Gondar ee caasimada labaad ee gobolka Axmaarada. xoogagga TPLF ayaa waxay sheegeen inay xasuuqeen maleeshiyaad aad u tiro badan halkaana ay jabkii ugu cuslaa u geysteen maleeshiyaadka Axmaarada ee sida ay sheegeen kasoo dulay caasimada gobolka Axmaarada ee Baxardar. TPLF ayaa waxay sheegaysaa inay isku sii ballaarinayso deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi iyadoo in ciidamada TPLF ayna weli ka wada bixin gobolka Axmaarada sida la soo sheegayo. ciidamadan dagaalka xoogan ka wada magaalada Gondar eeriyadeeda ama dhulka jiraanka laha magaalada Gondar ay yihiin ciidamo ka tirsan xoogga TPLF. hase yeeshee qowmiyadda Axmaarada ayaa waxay aaminsan tahay ciidamadan dagaalka culus ku haya maleeshiyaadka Axmaarada in ay yihiin ciidamo ay TPLF ka samaysay gobolka Axmaarada waqti ay gudaha gobolka Axmaarada joogtay ayna yihiin maleeshiyaad ka soo jeeda gobolka Axmaarada ama qabiilada degan gobolka Axmaarada. TPLF ayaa waxay sheegaysaa halkaasi guula aad u ballaaran inay ka gaadhay ciidankooduna ay isku sii ballaareen deegaano aad u fara badan oo ka tirsan gobolka Gondar. gobolka Axmaarada ayaa la soo sheegay inay kasoo barakaceen dad aad u tiro badan dadkaas oo dhanka ay magaalada Addis Ababa u jahaystay. gobolka Axmaarada ayaa waxa uu noqday hoyga dagaalada ee dalka Ethiopia. xoogga TPLF ayaa dagaalo qaraar waxay ku hayaan gobolka Canfarta hadka ay la wadaagaan waqooyiga dalka Ethiopia. Canfarta iyo Tigreega ayaa la soo sheegay inay dagaalo qaraar ku dhaxmarayaan xadka labada deegaan ayadoo halkaasi hubka noocyadiisa kala duwan la soo adeegsanayo. xoogga TPLF ayaa difaac dhul ballaaran oo gobolka Tigreega kaga jira ayagoo dhan kasta dulaan culus uu kaga socdo sida la sheegay ugu yaraan 7 jiha oo gobolka Tigreega ay dulaano cusub ka socdaan. hase yeeshee ciidanka Tigreega ayaa difaac culus kaga jira waqooyiga dalka Ethiopia. Tigreega oo aad u go'doonsan ugu yaraan 1 sano iyo dhowr bilood ayna wax diyaarada ka degin oo dhulkaasi go'doon iyo biyo korontana aan lahayn ayaa haddana wajahaya dagaalo aan dhammaad lahayn oo ka socda dalka Ethiopia. tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.